shan maalin oo dhacartooda iyo dhaxalkoodu ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac, agoontoow, hooyo gablantay, midaasay qaaday, iyo sidoo kale barakac iyo in dhirta hoosteeda miciin la bido ayay wajahday magaalada Laascaanood. Isweydiisa inay jiraan 4 arrimood oo waaweyn, halka mid ay leeyihiin dalalka shisheeye oo u sacabtumaya arrinta, qaarkoodna ay jilbaha la jabsadeen farxad. waa dalalka safka hore. arrintaasna halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. danta kale ee laga leeyahay dagaalkan bal isweydii, Somaliland maxay tahay sababta ay ugu fara adeegayso magaalada Laascaanood ee gobolka Sool? Muuse Biixi Cabdi muxuu u diiday mas-uuliyiinta heerarka kala duwan ee Somaliland iyo talooyinka iyo baaqyada ka imaanaya? danta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku wajahan in Laascaanood ay gacanta u gasho dhinacyada hubeysan ee maamulka Khaatuma, iyo sidoo kale in ay gacanta Somaliland ay ku sii jirtaba. maxay tahay se danta shacabka lagu dul dagaalamayo ee aan loo naxariisan, qaarkoodna la toogtay xitaa si bareer ah? maxay tahay taariikhda fog ee kicisay dagaalkan, islamarkaana gubaabada u noqotay ciidamada aan haysan saanada ku filan, balse ugu dambeyntii noqday masiibada weyn ee la wareegay magaalada Laascaanood? intaana gudagelin qodobadaas, daawada follow grey oo share grey page-ka la wadaag saaxiibada, aragtidaadana qaybta hoose noogu reeb. ana ku bilowna waxaa jira 4 arrimood oo waaweyn, islamarkaana saldhig u ah in dagaalka Laascaanood uu daba dheeraado. mar haddii aaggaasi uu yahay dhulka laba degaan oo ekaha, islamarkaana aan lahayn wax soo saarka beeraha, webiyada iyo sidoo kale suuqyada waaweyn ee ay ku degto shixnadaha sida tooska kaga yimaada dekad ama maraakiib ku soo xirata. waxaase jira gacmo kala duwan oo la aaminsan yahay inay dagaalkan ay si ka dadban, si toosa iyo si ka maqan intaba ay u taageersan yihiin. ana ku bilowna kow, dalalka safka hore waxa ay tumayaan sacab tumidii ugu xooganayd oo ku aadan xiisadda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. dagaalku inuu daba dheeraado waxay u horseedaysaa wadamada safka hore iyo guud ahaan dalalka midowga Afrika ee ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya. arrinta koowaad oo ah in ay wado u helaan ciidamada shaqadu ay kasii dhammaanayso ee ku sugan koonfurta Soomaaliya oo helaya meel loo daabulo oo nabad ilaalin ay ka noqon karaan. qodobka labaad ee midowga Afrika ama dalalka safka hore ee ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ay ka dhaxlayaan ayaa ah in cunaqabataynta hubka oo hortaagan xuduudda military ee Soomaaliya ay tahay mid loo helay qiil iyo sii adkayn mar kale in muddo kordhin loo sameeyo. arrintaas oo ay dabada ka riixayaan wadamada Ethiopia, Kenya, kuwaas oo dareensan in xuduudda military ee Soomaaliya oo dib u soo laabata ay tahay mid la imaanaysa halis weyn, maadaama sanadihii farmaajo uu dalka hogaaminayay la dareemay culayska ay leedahay Soomaaliya oo uu hogaamiye mayal adag taladeeda la wareego. arrinta labaad, maxay tahay danta Muuse Biixi Cabdi ee ku jaban dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool? muxuuse u diiday baaqyada ka imaanaya mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka, gudoomiyaha golaha wakiilada oo shaqada joojiyey, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo heerar kala duwan leh? madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa taariikhdiisa fog marka dib loo eego waxa uu leeyahay taxanad dagaal oo dhinaca taariikhda ah. waxa uuna mar afkiisa ka sheegay in hooyadiis oo u ducaynaysa uu ka diiday, islamarkaana uu doortay in dagaal iyo inuu dad dilo uu doorbiday. taasi waxay muujinaysaa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu yahay shaqsi dabeecad ahaan u sabaysan xagga dagaalka. arrinta ugu muhiimsan si uu ka leeyahay dagaalkan ayaa ah in uunan burburinin nidaamkii Somaliland ee ictiraaf raadinta iyo sidoo kale dowlad sal ballaaran oo aan ahayn hal qabiil ama hal qoys. taas ayaana ku sababaysa in xoog iyo xeeladba uu ku maqoonayo reer Laascaanood iyo guud ahaan SSC cid walba oo joogta. waxaana hanka Muuse Biixi uu yahay in uu u sii ballaariyo Somaliland ilaa uu ka gaaro magaalada Garowe aageeda. taas ayaana ah qodobka labaad ee dhiirigelinaya dagaalka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu ka fogaanayaa in ciidankii Somaliland ee jabiyey dowladii militariga ahayd sanadkii 1988 ee ku guuleystay in ay la wareegaan Hargeysa iyo aageeda in ay xambaartaan
taariikh madow oo dagaal islamarkaana ay beeli kala wareegto dhulkii ay maamulayeen 15 sano ee lasoo dhaafay ee saanada iyo sidoo kale difaacyada ay ka dhigteen. waxaa sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka fogaanaya in dhaawac siyaasadeed uu kaga yimaado oo uunan ku waayin sumcaddii uu ugu tartami lahaa doorashada soo socota. haddii gobollo uu lumiyo waxay noqonaysaa caqabad weyn oo siyaasadeed oo hor istaagta. waxaa sidoo kale dhiigga dadka daadintiisa uu madaxweyne muuse uu ku bedeshay in mashaariicda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa xorriyadda safarka iyo maaliyad aan xayiraad laga saareynin inta loo aqoonsado aagaasi inay yihiin goob ay ka dhaceen dembiyo dagaal oo haddii gacanta somalilan ay ka baxaan dhulkaas oo hay-ado madax bannaan ay baari sameeyaan. aan u gudubno qodobka saddexaad ee dhinaca dowladda federaalka. dowladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay horey mar ballan qaad u sameysay xilligii xilhayntiisii koowaad in SSC ay maamul goboleed noqon doonto oo ayna noqonaynin dhul ugu muransan yahay, balse madaxweyne xasan sheekh arrintaas xilligaas waa uu dhaqaajin waayey sababo ay ka mid ahaayeen caqabado uu kala kulmay siyaasiyiintii markaasi qaatumo joogtay oo ka mid ahaa allaha u naxariistay professor cali khaliif galayr. sidoo kale xilligan dowladda federaalku waxay u muuqataa mid bilowday xifaaltan toos ah, waxayna dareentay habka iyo qaabka lagu raadin karo in soomaalidu ay dib isku abaabulaan oo midnimada iyo kala jabkaba qaab kale oo looga hortegayo oo aan ahayn wada hadal. in gobolada SSC ay go-aan waxay soo yareynaysaa iskoobkii iyo gorgortankii ay dowladda federaalku wajahaysay ee kaga imaanayay dhinaca somalilan marka la joogo wada hadalada ay mas-uuliyiinta iyo wafuudda caalamiga ay ku sugan yihiin. taasi waxa ay soo dadejisay in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya axmed macalin fiqi inuu ku dhawaaqo in ay taageerayaan isimada dhaqanka iyo warmurtiyeedka ay soo saareen. fiqi dhinaca kale dadka deegaanka wasaaraddiisa waxay u sheegteen in qaab ahaan ay qaraabo yihiin oo ay isku dhow yihiin marka la fiiriyo haybaha kala duwan ee soomaalida. waxaa sidoo kale fadhiya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo si guud beesha ugu abtirsada. dhinaca kale waxaa jira taariikh dagaal oo fog islamarkaana kicinaysa dagaalkan islamarkaana abuureysa xanafta weyn ee dadka deegaanka kuna dhiirigelinaysa in ay sii wadaan oo ay mitidaan. marka laga reebo in magaaladu ay wajahday tacadiyo ay ka mid ahaayeen in haldoorkeedii la laayay 20 ruux oo shacabana lagu bartilmaameysaday oo qaarkood si bareera loo toogtay, iyadoo la garanayo dadka ka dambeeya arrintaasi ay xukuumadda somalilan argagixisana ku tilmaantay dadkii dhibaatadu ay gaartay. arrinta fog ayaa ah in qoyska dega aagga laascaanood ay yihiin qoys ku suntan halgankii daraawiishtii ee sayid maxamed cabdulle xasan, waqtigaas oo ismaaciil mire oo kasoo jeeda deegaanka uu ahaa abaanduulaha guud ee daraawiishta, kaas oo keenay guulo waaweyn oo bulshada soomaaliyeed ay ku leeday. waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyey ee u jilib dhigay gumaystihii ingiriiska iyo sidoo kale dalalkii kale ee saancadkii ingiriiska uu hogaaminayay ee reer yurub. waxaana taasi ay dhalisay in qorisku dhiibka xorriyad u dirirku ugu dambeyntii soo gaaro heer jamhuuriyadda federaalku ay madax banaanaato 1960. marka laga soo tago taariikhdaas oo dhiirigelinaysa dadka deegaanka islamarkaana u diiday in ay wada hadal iyo qaab isdhigid u egba ay galaan, waxaa isweydiin mudan xaggee ayay ku jirtaa danta dadka ee deegaanada gobolka sool iyo guud ahaan SSC. shacabka dani uguma jirto inay barakacaan, la burburiyo hantidooda, laguna abaabulo colaad laga maarmi karay oo labada dhinac ay xal iyo qaab kaleba ay ku wajihi kareen, mana mudnayn in canshuurtoodii iyo sidoo kale dhaqaalihii ay bixiyeen iyo rasaastii lagu iibiyey askartii mushaar ahaanta u qaadanaysa intuba ay toogasho bareer ah iyo mid duqeymeedba ay ku burburiyaan hantidooda, naftooda, deegaankooda iyo sidoo kale waxbarashadooda. waxay sidoo kale shacabka deegaanku aynan mudnayn in sawaxanka, rasaasta iyo sidoo kale hanjabaadu ay noqdaan kuwo isdabajooga, taasina ay ugu dambeyntii qaarkood ku qasabto in ay ka cararaan magaalada,
kuwana ay ku adibabeelaan, ku agoontoobaan, ku gablamaan ama ay asay ku qaadaan hablo Soomaaliyeed. danta dadku waa inay helaan deegaan nabdoon oo ka madax bannaan gorgortan iyo xifaaltan awoodeed siyaasadeed iyo mid kale intaba. taas ayaana keenaysaa in deegaanada SSC ay nabadgelyo helaan. daawada falowgare oo sheergara beydkeena la wadaag saaxiibada una ducee bulshada Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay haysato iyo nasiib darrada isku dirtay dad walaalaha oo Soomaaliyeed oo dhammaantood af iyo isku diin iyo isku qoysba. waa ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena nabadgelyo.